barnaamijkani waxaynu kaga hadli doonaa kuna qaada dhigi doonaa mid ka mid ah hal abuurka da'da yar ee aadka looga xiiseeyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee ay degto bulshada dadka ku hadasha afka Soomaaliga. waa abwaan da'yar, waa mu'allif iska leh heeso iyo maansooyin iyo sidoo kale gabayo kala duwan oo bulshada saameyn ku leh. Mubaarak Maxamed Careef waxa uu ka mid ahaa barbaartii 1994 ku dhalatay xaafadda Goljan ee magaalada Hargeysa, halkaas oo uu ku barbaaray kuna hana qaaday ilaa iyo magaalada Hargeysa uu ka dhammaystay waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe oo uu markaasi ka dhiganayay dugsiga lagu magacaabo Sheekh Madar ama bulshada qaar ay ugu yeedhaan Xuseen Girre. isla waxbarashadiisii dugsiga sare waxa uu ku qaatay dugsiga lagu magacaabo 17 May oo ka mid ah dugsiyada sare ee sida gaarka loo leeyahay kuna yaala magaalada Hargeysa. Mubaarak Maxamed Careef waa hal abuur da'yar oo Rabbi hibe u siiyay curinta iyo alifidda suugaanta qaybaheeda kala duwan, walow yahay nin aad u da'yar oo madaxa la soo kacaya, haddana suugaantiisu waa mid saameyn ku leh bulshada dhexdeeda, waa mid ay xiiseeyaan dhammaanba dadka ku hadla afka Soomaaliga, waana mid taabanaysa dhacdooyinka dhabta ah ee ka dhex jira bulshada, waxaana inta badan ay bulshadu ku tilmaamaan suugaantiisaasi mid soo jiidata indhaha shacbiyad badan.